waa munaasabad isugu jirtay guddoonsiinta shahaadooyinka in ka badan 20 arday oo ka dhamaystay dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Waaberi maadooyinka kombiyuutarka barashada caafimaadka iyo furitaanka sanad dugsiyeedkan oo lagu dhiirigeliyay ardayda kaalimaha hore ka gashay imtixaanaadkii dugsigu dhawaan qaaday waxaana madasha munaasabadan goobjoog ka ahaa mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda waxbarashada Galmudug maamulka degmada Dhuusamareeb maamulka sare ee dugsiga Waaberi iyo ardayda ka qalin jabinaysay dugsiga ugu horeyn maamulaha dugsiga hoose dhexe iyo sare ee Waaberi Dhangad Maxamed Xasan ayaa sharaxay marxaladaha ardaydani soo martay iyo doorka waxbarasho ee dugsigan dugsigu wuxuu ka kooban yahay dugsiga hoose dhexe iyo sare ayuu sanadkan u gudbay oo arday sideedaadkii ayaa tiimkan ka soo gudbay iskuulku wuxuu ku shaqeeyaa si voluntary oo lagu talagalay dadka deegaanka iyo dadka soo qaxay ee barakacayaasha ee deegaanada cadowga uu haysta ka soo barakacay in aqoontooda sare loo qaado dhalinyaro ka tirsan deegaanka ee isku tagtay isku abaabulay ku talagalay inay maadaama ay aqoon-yahano ahaayeen inay wax ku soo kordhiyaan deegaanka ayaa aasaasay dugsiga hoose dhexe iyo sare Waaberi madaxa waxbarashada degmada Dhuusamareeb ee wasaaradda waxbarashada Galmudug Farxaan Cabdi Maxamuud iyo xogayaha dawladda hoose ee Dhuusamareeb Xasan Tahliil ayaa ardaydan ugu hambalyeeyay qalin jabintooda waxaan rabnaa inaan u mahad celino ayagana oo dhahno jazakallahu ilaahay ninka amaal mariyo dadaal fiican iyo waxqabad fiican baa soo qabateen meesha ka sii wada runtii intaan isla soconay oo wax walba ka wasaarad ahaan aan ogeynay meesha mar walba wax marayaan waxbarashada ayay nihaayo male wax dhamaada ma lahan laakiin mar kasta oo qofka uu waxbarto qofka aan waxbaran uu ka fiican yahay waana ka qiimeyn badan yahay runtii hadda hadii la fiiriyo zamankaana waxaad moodaa iskuulaadka aad iyo aad in loo camiray zamanku waa zaman aad iyo aad u adag marka insha allahu tacaala waxaan leeyahay oon rabaa inaan kula dardaarmo midda diinta iyo midaan kale oo maadiga labadaba inay ku dadaalanayaan kula dardaarmayaa xildhibaan Cibaade Yuusuf Axmed oo ah gudoomiyaha dugsigan ayaa ka warantay xaaladda iskuulkan oo kamid ahaa goobihii waxbarasho ee dawladda dhexe qaybna ka ah tirada yar ee iskuulaadka dib loo howlgeliyay dawladda dhexe markii dhacday gacanta inta ka sokaysa anaga ku hayay markii xaqiiqo laga hadlayo wuxuu soo maray heerar badan oo hadba inta la furo la xiro dhaqaale la'aanta daraadeed wuxuu himigalay sida hadda agaasimo uga hadlay inaan helnay bulsho kaabaysa inaan helnay macallimiin kaabaysa inaan helnay hay'ado kaabaya inaan helnay sida Galmudug waxbarashada Galmudug oo wasiirku uu horkacayo ama xogeeyada joogto oo kaabaysa sidaas marka wuxuu u noqday iskuul u baahan in maanta inta ka dhiman loo dhameystiro Maaxa Xuseen oo ah qurbo joog dalka dib ugu soo laabatay ayaa ardaydana u muujisay sawirka dugsigan in lahaa 40 sano ka hor oo ay ku beegnayd waqtigii ay kamid ahayd ardaydii wax ka baranaysay fasaladii dugsigan aniga waxaan ahay qurbo joog soo noqotay oo deegaanku soo noqotay haddii aan intaas uga gudbo qurbo joog ahaan deegaankana ka soo jeeda asal ahaan iskuulkan laftigiisan elementary ka bilaabay 40 sano ka hor caawa waxaan soo booqday oo Zubeer soo tusay qolkii aan fariisan jiray mar walba waxaan ahaa arday waa soo kali jiray dhinacan waxaa ku ooli jiray xarunta directorka oo lahay iskuulkan ayaa soo saaray dufcada isxiga sanadihii u dambeeyay waxa uuna kamid yahay dugsiyada in ku dhow nus qarni ka hor laga aasaasay gobolka Galgaduud gaar ahaan magaalada Dhuusamareeb Cabdullaahi Warsamo Roble Somali News TV Dhuusamareeb